بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستا لا فيتوريا سيمبري خاياش ميل بانشوكتين. وأنا ربا هالكن إن آدي أدو مهد عليو دلني ربضان إدمون يقرأ هذا الشيء ميل والب يقرأ هذا الشيء آد نوتش على هذا مركان تاريخ ذا كهد ليو وحن كسو هاد لي بربرة ما أنتو وحن كهد لي وحانو بحينيو الصوماليدو a discovery weeyaan. This video is historical discovery. Hadda ka hor waan ka soo hadlay magaalada qiimaha badan ee taariikhda dheer leh ee Zeyla 25th century, 16th century, 19th century ahayd meesha kaliya ee ugu qadiimsan regionka ee ahayd meeshii ay Maria Teresa xataa tagi jirtay ee lacagteediina ahayd liiradii Maria Teresa. waxaan ii sheegayaa waddanka Awdal state Awdal waa ancient waa taariikh sultanate of Awdal la oran jiray wax walbo maanta waxaan galaynaa opportunity fiican doonayaa inaan dhalinyarada baro waxaan rabaa inaan ka hadlo jasiiradaha Somaliland waxaan kaloo ka soo hadlayaa buuraha Somaliland oo cirgaab ah waxaan ka soo hadlayaa buurta daalo waxaan ka soo hadlayaa geeda videogan waxaan ku magacaabay part 1 Bismillahir Rahmanir Rahim. This is explorer events, discovery, amazing, a beautiful, Tramont, Island, iyo diin cilmiga Islaamka. waxaan rabaa inaan halka ka soo hadlo the richest island in the region. waxaan explorer u rabaa inaan u sameeyo usoo explore gareeyo explosion boom of tourism of Somaliland. The Saadadin Island jasiiradda Saadadin Arabic magaceeda waxaa la dhahaa Jasiira al-Din quraanka lagu baran jiray oo sheekh wadaad deganaa. Also Romans waxay u yaqaaniin Saadadin known as Zeyla Archipelago waxay ku taalaa Zeyla Archipelago group of Island iyadii cibaado in the north coast of Somaliland. The area situated near the ancient city and precious city of Zeyla. waxaan ka bilaabeynaa aan rabaa inaan u sheego dhalinyarada adduunku waxaa dhul iyo cir iyo bad iyo meel walba iyo dhir lagu qiimeeyaa environmentka ka jira ayaa muhiim. The Saadadin Island well known splendid coral reef similar to those found in the southern coast of Oman 4th centuries, reef coast of Aden, possibly the largest in the region. Coral kan li macnaynaya marka waxa coral la dhaho waa species oo waxa weeye waxay ka samaysan tahay cangaleelo Soomaalidu cangaleel bay u taqaanaa Chiprea qurux badan nooc walbo cangaleesh adduunka ah ayay ka samaysan tahay reefkeeda iyo areadeeda iyo dhulkeeda iyo bacaadkeeda cangaleel baa ku daadsan. waxayna u eg tahay 14th century-gii sidii ahaan jirtay Oman southern coast of Oman, possibility the largest island region ku taalna wada from provincial counts waxay leedahay wax provincial counts markii la wax qiimo leh. Nitinate different species of coral from 43 ayay leedahay waxay leedahay coral from 43 different general coral angaleelaha buug baa loo sameeya has been found in the island oo laga helay islandka. There is also 120 different species of coral fish. markaan coral fish ni dhahay maaha kalluunka la cuno. Coral fish waa kalluumo yaryar aad hodheelada waaweyn ku arkaysiin vivaya ku jiraan miraayada la geliyaa qurux waa gaduud cagaar jaallo nooc walbo
magacyo leeyihiin coral fish la dhahaa waa qaali waa kalluunka ugu qaalisan la daawado and very 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 quality kalluun ah oo qurux badan ee ka hadlayo cimilo badda hoosteeda ah oo garden ah oo paradise ah oo geedo ku yaallo fiyooro ku yaallo ayuu ku dhex nool yahay vivayaasha la gashtaa kan ugu yar ee 5 centimeter-ka ah ayaa jooga $150-200 ayaa laga helaa. Different species of 43 different general been found in the Israel. There are also 142 species of coral fish including those kuwa laga helo Red Sea, Gulf of Aden, Indian Ocean. meesha waa meel mucjiso ah waa bad iyo jasiiro mucjiso ah. kalluunka laga helo Mediterranean-ka Indian Ocean lagama helo. kalluunka laga helo Red Sea, Gulf of Aden lagama helo. kalluunka laga helo Red Sea ama Pacific lagama helo meel kale. laakiin island-kan wuxuu mucjiso ku tahay ay creative ku tahay kalluunka laga helo Red Sea laga hela, Gulf of Aden laga hela, Indian Ocean laga hela oo coral fish. waxaan kaloo nii raacinayaa this island of Somaliland is inhabited of the government. this Sacaadadiin and Cibaado 15th century waxay ahayd meesha uu Ibn Battuta ku degay ee soo gaartay Maria Teresa ee boqortooyada ku nasan jireen. was a fantastic vision weeyaan oo kala cirkeed. but our sister waana laba island oo walaalaha Majorna British colonialisa ka jiro. jasiiradan dad kuma nool. jasiiradani waxaa gumaysto oo yimaado immigration yimaado degan shimbiro caalamkana ka yimaada ku nool. shimbira ku nool programmatic ah safrayo winterka ka imaanaya ilaa Canada Australia summerka primavera ilaa Lake Nevada gaarayo meelba gaarayo markaad magaalada aragtid shimbira ku nool oo nooc walba adduunka shimbiraha dhan colonial ay ku leeyihiin way degan yihiin. geedaheedu waa geedo flowers yar leh ee 24 hour iyo 375 days ee tahay dhir flower leh ee aad u moodid springkii Europe iyo waxaad arkaysaa springkii Africa iyo waxaad arkaysaa springkii Khaliijka iyo Carabta iyo wax walba. monsoonkeeda waa temporary paradise. dhulkeedu xeebtu waa cangaleel ka soo bax waa lagoon waxa weeyaan coos baa ku gulan oo qurux badan oo margarita ka baxda. Disneyland lama degan weligeed lama degan. sheekh baa degi jiray cilmiga loogu tago diinta. carabtu waxay u garan jirtay Sacaadadiin ma oran jirin waxay oran jirtay jasiiradda aldiin quraanka lagu barto. waxay meel qurux badan spirituous ah qoraalka fartan ah hadda ay carabta qorto Usmaan bin Affan iyo Ali bin Abi Talib iyo qorayaan quraanka ayaa sheekha Sacaadadiin Cibaado waxa lagu tagi jiray farta quruxda badan ayuu soo siin jiray shakalka iyo tashkiilka quraanka iyo alfikr alfloos dhabe meesha waxa loo tagi jiray kaliya sheekha laga soo qaadan jiray cilmi haddana uu ku dugan yahay. but our sister major island waa labadaba Sacaadadiin iyo Cibaado. and the Israel Sacaadadiin alone jasiiradda Sacaadadiin kaligeeda 100 million waa wax ibn aadanka ka badan 100 million birds pairs record ay leedahay oo lagu tilmaamo. hududka wuu ku badan yahay waa meesha uu ku haray hududka ee Suleymaan Balqiis u diray. hududku waa baal qurux badan xogaa yar u soo uraa laakiin waxa weeyaan specific of telecommunication meesha ka timaada istikhbaaraadka ka yimid wax walba ka yimid. hududka waa meesha uu ku nool yahay uu degaan ku yahay. waxaan rabaa inaan u sheego Avalitis description ajiro. Avalitis waa la garanaya waa dadkii hore. in the 8 chapters of Peninsula waxaa la oran jiray Eritrean Sea written by the Greek merchant. waxaana soo qoray ninkii Greek-ga ah ee merchant-ka ah ee mulaaxada qoray. the first century aadanna waa lagu tilmaamaa meesha waa lagu sheegaa gaalada way ku sheegtaa. in the
purpose of described as an open road cell territory by the speed running from the East African to the all the world. marka waxaan nii sheegayaa Somaliland waxay leedahay jasiirado la iloobay virgin awdal ku yaal zeylac u dhow qurux badan ciideedu angaleel tahay angaleeshu waad raadin kartid buugag ayaa jiro. There is a book encyclopedia oo kale oo ka hadlo angaleesha nooceeda. angaleeshu way hadashaa. angaleeshu waxa waaye the art of the world. angaleeshu ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay hadlayso in ay muujinayso kalarada maanta la isticmaalay Picasso isticmaalay angaleesha ka timid. marka waxaan haysanaa dhul ku goglan angaleel jibreya qaali ah xabadaad kor u soo qaadid waxay ka bilaabanaysaa $100 ilaa $1,000 dadku ma ogo. waad aragteen siyaaxa meel walba la tago Spain meel walba Caribbean meel walba angaleeshu waa la soo gaadaa waa la soo bixiyaa badda laga soo bixiyaa waa la soo aruuriyaa qiimay leedahay. We have a rich country. waxaan leenahay meel ku fiican archipelago wax sawiraad dadku waxay sawirtaan shimbiro. ninkii maanta aadi lahaa Australia ama aadi lahaa America ama aadi lahaa North America ama aadi lahaa Africa South Africa Junub Africa iyo India meel walba ee raadin lahaa noocyada shimbiraha ee buugaagta lagu soo qoray laga hadlo noocyada shimbiraha waxaa ku tegaysaa jasiiradda Sacaadadiin. You will find fly robin fly. waxaad arkaysaa shimbiro gabyaana kuwa badda ah xeebta tuban kuwa cooska dhex marayo kuwa geedaha fuulo kuwa degan kuwa ku nasanayo kuwa immigrate gareynayo wax walba. that's waxaan ugu bixiyay explorer. waa inaan usoo jeesanaa siyaaxadda ana ka bilaabnaa labadaa jasiiro Sacaadadiin iyo Cibaado ee ah mall strategic lagu nasan karo temperaturekeedu ma kululo. hargeysana maaha zeylacna maaha berbera maaha waxay leedahay cimilad gooniya. dhulku mar wuxuu noqdaa gaduud tramont qoraxda markuu dhacay baddiyaa gaduudanayso dhulkiyaa gaduudanaya dhirtiyaa gaduudanaya xayawaankiyaa gaduudanaya. waxaa kaloo ku badan tunkulush oo istaagayo kula hadlayo geedaha fuulayo. waxaa kaloo aada ugu badan oo meesha ku nool cameleon geed walba waxaa saaran markaad usoo dhawaatid xayawaan ku ekaanay xayawaan kalarkiisa isbedelay qurux badan. I discovered today Sacaadadiin Cibaado lu'a weeya. waa inaan usoo jeesanaa siyaaxada aan ka hadalnaa. zeylac horaan uga soo hadlay. zeylac waa meel first century-ga ah aadan xataa lagu tilmaamay wax walba lagu tilmaamay jasiiradeeda qurux badan waanaan siyaaxada usoo jeesanaa. waxaa kaloo iigu xigaan ka hadli doonaa ergaabo iyo daalo iyo geedaha ku yaallo. waxaanu leenahay dhir aad u qiimo badan moogani ah eebane ah dhir gaduudan dhir madow dhir cagaaran nooc walba leh oo jiradkoodii wax walba laga soo bin karo iyo lubaantaan galayna. hasta la Victoria sempre khaqaayash mac salaam.